بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حربا إن أمريكا هراء تعسي أدرو الذي يقرأ ودي سرقالكي قال كعيل قد نساء عليف صدق الوحان تعسي أدريا الذي يقرأ وده هدي إجران دت أنا وحبا قلب سنة قدام بالله وياه الريدة أو innocent people أنا بريمجيدة أو فالكاس أوجس لو وحي اللي أما لو وحي اللي قال كعيو hadalkaas waxaad ka dheehan kartaa in daahir calasow uu markaa ka wado waxaa jirta in dadkan tuhun ama ogaanba lagu ogyahay in qaybo ka mid ah ay falalkaas ka qayb qaadan jireen sababtaa wuxuu yidhi sida aad hadalkiisa ka dareemi kartaanba haddii ay jiraan dad aan waxba geysan marka halkaa waxaa ka cad in uu tuhun dadka masaakiinta halkaa lagu laayay uu ku tuhmi karo inay qayb ka midi gacan saar la lahaayeen qolyaha iyagu markaa dadka laaya ee madaxa duubta marka laga hadlayo digili marfadka u dhasha 2013 173 qof baa lagu dilay Puntland 200 oo qoys waya qof ma ah oo qoys ay galmudug baawru dirtay soo daabushay koonfurta gaalka ciidajeen wilna way ku nool yihiin runtii waa been cad arrintaasi oo ma jirto dad intaa la eg oo halkaas sida uu sheegay Puntland lagu xasuuqay taariikhdu waa wax la ogyahay oo ma aha wax lagu been abuuran karo cadad intaa la eg oo markaa qaxay ama ay dib u dejin siisay galmudugna dee maba jirto intaa dad la eg maba qaadi karto laakiin waa iska been abuur uun ka mid ah been abuurada cid kastoo gasho qadiyadaas oo sargaal iyo nin muhiim ah hal door naga dila oo kiiska gala waa loo laba jubbaari meesha qosol ma yaalo meesha waxa la dhahaa galmudug waxa la dhahaa laaki gaalkacyood ee mudug qosol ma yaalo miyaan hadalkaas daahir calasow loo fasiran karin haddii aad Puntland ciyaar iyo iska soo dil ahaydeen halkan tiina gulama dhaqmi kartaan oo iska kaaya dilamaysaan magayaan saas ahayn cid kastoo gasho qadiyadaas oo sargaal iyo nin muhiim ah hal door naga dila oo kiiska gala waa loo laba jubbaari meesha qosol ma yaalo meesha waxa la dhahaa galmudug waxa la dhahaa laaki gaalkacyood ee mudug qosol ma yaalo waxaan leeyahay xildhibaanada digli marfil siyaasiyiintooda waxaan leeyahay markii Puntland lagu dhameeyay dadkiinu oo 103 nin qof ka dilay galmuduga baawrta qaatay ku soo daabushay 2013 ay koonfurta gaalkacyo soo dejisay reer galmudug aan noolaataan bay doonayaan taariikhina u leeyihiin laakiin qofna idinka yeeli mayso inaad gujiga noo soo duwataan cidna idinka yeeli mayso cidna yeeli mayso in wiil baa iyo bakoolaan ka imid loo maymay ku hadlaayo uu haldoorkeena dila yeeli ma hadduu dilka geystay inuu guryihii dadkaan soo dejinay aan ka soo qaadnay Puntland ee aan mataqaanaa deegaanka siinay uu guri intuu u galo ay qariyaan ladinka yeeli ma haye hadalkaasi markaa muxuu noqonayaa wuxuu yidhi idinka yeeli mayno inaad markaa haldoorkayga dishaan oo weliba guryahii aad gashaan halkaa marka waxaa ka muuqata xagga markaad wax kusoo leynayseen guryaha haddaad soo gashaan markaas wax dhiba uma aanaan arkayn laakiin hadda de annagii noo adeegsan maysaan arrintiis oo sidaa ma waa la iska celinayaa magac shabaabay soo gashanayaan shaar shabaabay gashanayaan waa ognahay waa la iska celinayaa haye halkaa maxaad ka maqashay waa ognahay shaati shabaab bay soo gashanayaan markaasay dadkii laynayaan oo iyagoo markaa waanu ognahay ya marka halkaa maxaa kaaga cad adigu fasir waa la iska celinayaa magac shabaabay soo gashanayaan shaar shabaabay gashanayaan waa ognahay waa la iska celinayaa waxaan leeyahay waxaan tacsuub dirayaa hadday jiraan dad aan dembi lahayn oo meesha wax ku yeelo waxa la ilaaha u naxariisto saddexdii nin isaga dambeysay ee saraakiisha ahayd ee waxgaradka ahay haldoorka ahay ee lagu dilay gaalkacyo waxaan leeyahay allah u naxariisto reer gaalkacyo guud ahaan koonfur iyo waqooyina waxaan leeyahay duulaan baa socda duulaankaana idinkooda ku socdaa indhaha ha la furo
qoryaha la taagan yahayna sima shaqayn doonto wadooyinka waa inay xaafadaha galaan qoryaha wabillahi tawfiiq arrintaani waa arrin ku cusub hadaladii horey looga bartay daahir calasow oo weligiis dhibaatooyinkii iyo madaxduubkii iyo dilalkii qorshaysnaa ee laga geysan jiray waqooyiga gaalkacyo weligii kama u hadlin maanta markii dhibtu ka dhacday koonfurtana waa isku lamaaniyey gaalkacyo oo mid buu ka dhigay waa yaab